أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أصحابي، هل كان maanta waxaan ku wadaagaynaa xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka wariyey Abu Shurayh Quwaylid bin Camr al-Khuzaaci. xadiiskaas Abu Shurayh Quwaylid Camr bin al-Khuzaaci wuxuu yidhi waxaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo oranaya qofkii rumeeyey ilaahay iyo maalinta yawmal qiyaamo ha karaameeyo qofka martida u ah jaa-isatu ha ka karaameeyo. nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiis waxay weydiiyeen waa maxay jaa-isada. wuxuu yidhi jaa-isada waxa weeye waa yoom iyo habeen, maalin iyo habeenkeeda. maalin iyo habeenkeeda ayuu ku fasiray nabiga calayhi salaatu wasalaam jaa-isadiisa. wuxuuna sheegay inay tahay diyaafada iyo martiqaadka 3 maalmood. wixii ka saa-idana waxaa weeye sadaqa ayuu ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam. sidaas waxaa soo wariyey imaamu albukhaari iyo imaamu muslim raximahum allahu tacaala. imaam muslim riwaayad kale u sugnaatay wuxuu ku yidhi qof muslima uma xalaal ah inuu iska ag joogo walaalkiis xaj agtiisa xataa ilaa uu dambaajiyo. sidoo ku dambaajinaya ayay weydiiyeen saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi waa ag joogayaa asoo aanan haysan wuxuu ku quudiyo. nebiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal wuxuu halkaan nagu baray aadaabta iyo diyaafada iyo martiqaadka maxay tahay. martiqaadku waa 3 maalmood walaalayaal. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu oranayaa wadiyaafatu 3 ayaam. diyaafada iyo martiqaadku wuxuu oranayaa waa 3 maalmood. wixii ka badanna waa sadaqo waana zaa'id. nebiga calayhi salaatu wasalaam riwaayad kale oo imaamu muslim ka wari wuxuu ku tilmaamay qofkay 3 beri kadib iska ag joogaya qofka walaalkiis inuu dambaajinayo. sababtu ah sidoo ku dambaajinayay weydiiyeen saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam. wuxuu ku yidhi waxna ma haysto agtiisa ayuuna iska joogayaa walaalkiis sidaas ayuu ku dambaabayaa. marka walaalayaal waxaan isku boorinaynaa inaan dadka la iska ag fadhin oo saas oo kale dadka aan la iska ag fadhin. diyaafadu waa 3 maalmood oo keliya. sidaasna ina la socda ayaan boorinaynaa walaalayaal, dadkana aan la iska ag aan la dambaabin.